ereyada qoomamaynta aan ugu isticmaalka badannahay markay cadhadu naga dhammaato waxaa ka mid a igaraali noqo hadaladayda kamaan fiirsan waan xanaaqay maankaygu wuu maqnaa markaan sidaas samaynaya waan xanaaqay qofku markuu cadhaysan yahay qaraaca wadnihiisa ayaa kordha dhiiggiisaa kaca muruqyadiisaa isqabsada neefsashadiisuna wuu kordhaa haddaba arrimahaas ee qofka markuu cadhoodo ku soo kordhaya markay xadka uga dhaafaan xanuuno daran ayay isku beddelaan sida xanuunnada wadnaha la xidhiidha oo dhan xanuunnada dhiigkarka loo yaqaano hurdayarida ama hurdala'aanta iyo wixii la mid ah qofku inuu cadhoodo mararka qaar waa arrin caadi ah laakiin mushkilad waxay isku beddelaysaa markuu xanaaqiisu bato oo xadka dhaafo haddaba waxaa muhiim ah inaad garato sidaad u xakamayn lahayd xanaaqaaga laftigaaguna aad isku koontarooli lahayd markaad cadhooto intaanad xanaaqin ka hor raadi wax walbo kaa cadhaysiin kara ama waxa inta badan kaa cadhaysiiya hadduu yahay qof aad ka maarsami karto ka fogow ama xidhiirkiisa yare hadduuse yahay wax kale ama dad aanad ka maarsami karin sida qaraabada oo kale sidaad ula dhaqmayso wanaaji laga yaabaa inay ku wanaajiyaan qof jilicsan oo cadho fudud inaad tahay dadku inay ogaadaan ma ahin waayo qof walba wuxuu isku dayi inuu kaa cadhaysiiyo soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa nin cadhooday laga bedi ku dadaal inaad ka fogaato cadhada si walbood kaga fogaan karto nebigeennuna salaallahu calayhi wasallam waa kii ku dardaarmay laa taqdab ha cadhoon isagoo ku celcelinaya ninkii ka dalbay dardaaranka intaanan cadhoon ka hor waxaan sameeya gartay oo fahmay se markaan cadhoodo maxaan sameeyaa sidee ayaan u dhaqmaa sidee ayaan isku xakameeyaa oo naftayda u koontaroolaa haddaba jawaabtu waa 5tan qodob ee soo socda dhaqan geli mar walbood cadho naftaada ka dareento waxa ugu horreeyo inaad la timaaddo ay tahay waxa weeye inaad shayddaanka iska naarto adoo dhahaya acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim markaad sidaas ku dhawaaqdo naftaadu way qaboobi waayo shayddaankii cadhadan dhan ka dambeeyey ayaad gubtay rasuulkuna salaallahu calayhi wasallam isagoo ka hadlaya nin cadhooday wuxuu yidhi low qaala acuudu billaahi min ashaytaan dahaba canhu maa yajid hadduu ninkaas dhaho acuudu billaahi min ashaytaan cadhadaa haysa way ka tegi lahayd markaad xanaaqdo inaad aamusto xoogga saar sababtoo ah hadallada lagu dhawaaqo wakhtiga cadhada inta badan waa laga qoomameeyaa idaa qadiba axadukum falyaskut ayuu rasuulkeennuna yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin hadduu cadhoodo ha aamuso haddaad ka maarsami weydo inaad hadasho fikir badan kadib hadal adoo waxyaalahaad ku dhawaaqi doonto garanaya oo huba oo aad nooga fiirsaday hadhow inaad ka qoomamayn dooninna garanayo xaaladdaad ku sugan tahay markaad cadhooto wax ka beddel haddaad taagan tahay fadhiiso haddaad fadhido jiifso talooyinkaas xadiis bay ku soo arooreen haddaad joogto inaad socoto isku day sidoo kale guriga haddaad joogto dibadda u bax soo wareeg hawada soo beddel yacni murtidu inaad jawiga beddesho weeye haddaad ka mid tahay dadka gacanta fudud ee gacanta ka hadla markay cadhoodaan ee wax walba isku qasa ogow arrintaas wax faa'iidoo la sheego inay ku jirin naftaado daalisan waxaanan ahayn haddaba qof adag oo naftiisa xakameeya markuu cadhoodo noqo laysa ashadiidu bisuraca inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alghadab ayuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam ninka adag ee itaal kale maahin ninka dadka lagda-i ka itaal roonaada se waa ninka naftiisa xakameeya marka uu cadhoodo haddaad si zaa'ida u xanaaqdoo wax ku dejiyo aad garan weydo keliya wayse qaadoo salaad gal siduu biyuhu u damiyo dabka oololaya ayay cadhada ku haysana u dami ugu dambayn waxaad ogaataa inaad waxba ka faa'iidayn cadho dhibaato waxaanan ahayn haddaba ka fogow wax walbo kaa cadhaysiin kara haddaad cadhootona xakamee naftaada oo ka adkow adoo ku dhaqmaya dhowrka qodob aan muuqaalka maanta kugula wadaagay muuqaalku hadduu ku cajabiyey laagta saar kanaalka haddaad ku cusub tahayna ku soo biir hadduu jiro mawduuca aad u aragto inuu muhiim yahay inaan ka hadlo qaybta kommentiga igula wadaag muuqaal dambeoo faa'iido loona kulmiya wassalaamu calaykum